بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي وياي محمد عبد الله عبدي كنا مقع دير باسكا كنا هضليا أفكر داليرتا قبلة قلبيتك waxaan leenahay golihii deegaanka ee Boorama wuxuu noqday fadhiid golaha deegaanka wuxuu noqday fadhiid waxa meeshii ka soo baxay niman mooshin quutayaal leeyahay xildhibaanna ma aha waa mooshin quutayaal baan u naqaanaanagu wax walba oo shaqadooda ahayd bareefad bay noqotay biyihii bareefad bay noqdeen laydhkii bareefad buu noqday gidaafadii waxay ku wareejiyeen bareefad iyagoo oo shaqadoodii oo dhan wareejiyey ayay haddana maanta maxay adaanay intii yareeda u hadhayna ay isku haystaan marka waxaan leenahay hadduu ilaahay idhaahdo nimankaasi shaqadoodii way gabeen ayaan leenahay waxaan halkan baaq uga dirayaa culimaadudiinka iyo salaadiinta gobolka ayaan baaq uga dirayaa waxa aan leeyahay haddii aad talada dalka iyo dadka idinku u talisaan oo ay taladu idinka inaga goodo golihii deegaanku wuu baaba'ay sida ugu dhaqsaha badan waa inaad u soo gaadhaan maanta haddii aad marto galbeedka Boorama galbeedka magaalada Boorama meel alla meel aad gidaafad ka marto ma helaysid wadooyinkii baa xidhmay shaqadaasina waa shaqadii dawladda hoose iyaga oo shirkad ku wareejiyey ayay haddana ku maamuli kari laayihiin saaka oo u dambeysay waxa ka taagan dawladda hoose in gaadiidkii bajaajta ay soo xiraysteen nimankii waxay ku soo xiraysteen lama garanayo qof walba oo bajaaj wada waxa laga qaadayaa $10 lama garanayo $10 meel ay ka yimaadeen meel ay tagayaan lama garanayo waxaan leeyahay salaadiinta iyo culimaadudiinka iyo ciddii ka qabta rajo gobolkan ama degmada inay arrintaa ka gurmato haddii kale nimankaasi kacdoon dadweyne ayaanu meesha kaga qaadi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay Saleebaan Cali Meydal kana mid ah dhalinyarada gobolada galbeedka waxaan halkan maanta aad uga dhaleelaynaa 22 maayir ee golaha deegaanka ee iyagu 22 maayir isku cimaamada isku doortay ma aha baan leenahay taan cadeeda u taagnayn een idiin doorannay maanta mansabkii dhalinyarnimo aqoon-yahankii dhalinyarnimo meel baad kaga dhacdeen oo wad xumayseen oo odayadii shalahan lahayn dhalinyarta bilaa shaqada uga heeliya meel baad kaga dhacdeen odayadii sharaf iyo karaamay naga mudnaayeen shalay meesha ka tagay aan idinka niga daba doorannay karaama darro sharaf darro ayaad soo hooyeyseen waxaad quudataan mooshin baad had iyo jeer soo hooyseen gobolkoona mooshin laga aqoonin ayaad mooshin iyo isjiidjiid iyo isxulufaysi afarba meel ku xidhan tahay had keenteen waxaad maanta horseedeen dhaqan aad u fool xun ayaan leeyahay 22 maayir war waxaan leeyahay shacab weynaha soo doortay musheekh tuqayda hala iskaga yimaado dawladdii hoose burburtay maalin kasta jiiq iyo jaqaaq baa taagan rafaad baa taagan ninka dawladda hoose wax kaga xidhmaan cid ma aragtaanay is haysato mooyaane cid shaqo u qabanaysaa ma jirto waxaan leenahay dadka gobolku ha ka dhiidhiyaan dadkii soo doortay ha dhiidhiyaan cod 5,000 oo qof ayay ku tagayaan raggan waanan abaabulaynaa waanan samaynaynaa haddaan dhalinyartii gobolka nahay idinku eegi mayno shacabka waxaad ku haysaan waddankii baa dhintay magaaladii baa dhimatay khashin bay dhimatay oo warshadii shirkadii lagu wareejiyay shaaba kama horseed kama daba tagaysaan oo khashinkii baa magaaladii hawlihiinni baad gabteen hawlna waxaad ka dhigateen inaad mooshin kolba maayirka aad doorataan kan maanta waxaygii baan ka waayo mooshin baan ka keeni had ku quudataan si aad dhaameel u daadsataan waarma baarlamankii waxaad ismoodeen golahii baarlamankaad ismoodeen
golo deegaan baa tihiin shacab baan soo doortay wax linii soo doortayna shacabka inaad u adeegtaan maanta ahaana mansabkii dhallinyarnimo aan idiin doorannay shaadh kalaad huwiseen waa niman shaxaad iyo ka taliyo nin kastaba inuu maayir yaho baabuur wato haw doonayo oo guri fiican maaragtaan ay dhisto lacag urursi waartaa waanu idinka diidnay wayna idinka dhammaatay sharaf iyo karaamana saasaad ku weydeen wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah qaasim muuse daahir hanfi haddii aan ka hadlo arrintan golaha deegaanka ee degmada boorama runtii magac qurux badan bay la baxeen markii golaha deegaanka uu soo baxay waa magac qurux badan bay la baxeen waxay yidhahdeen boorama bilicsa haddaanan qaldanayn noo magacii waan ku hungownay boorama bilicsan halkii ay ula baxeen waxay noqotay boorama burursan baaba'san war ayibaa meel laga mara lalaayay dariiqyadii buu qashin ku xidhay hawshii nimankan aan u doorannan u egmannay dee waxay kala garan laayihiin shaygii loo doortayba way garan laayihiin nimankan aan doorannay oon horta aad ugu han weynayn oo dhallinyaro ahaa niman aqoon la ahaa aan lahayn wax weyn bay ka beddelayaan bilicda magaaladu waxay noqonaysaa magaalada ugu qurux badan wixii way noqon weyday 21kiiba waxay isu qaateen 21 maayir nin waliba anaa maayira ayuu leeyahay maalin baa waxaa dhacday gudoomiyihii hore Saleebaan Xasan Xaddi ayaa waxay ka yar galeen aan xafiiska ugu tagay maxaan arkaa isagoo hareeraha laga wada fadhiyo iyo fadhiya madada u shaqeynayo dhammaan waa golihii deegaanka saan yaaba si malaha shirbay nimanku ku jiraan dib uga soo baxay saan kii askarigii meesha taagnaa ku yidhi shir buu ku jiraa maayirku maya waa iska fadhiyaa dee waa nin saa hareeraha looga fadhiyo waxuu qabanayo iyo wax kale ma jiro hal xildhibaan hadduu garaaco maayirka oo telefoonka ka qaban waayo bari wuxuu leeyahay mooshin telefoonka iga qaban waayo marka waxaan baaq u jeedinayaa culimaa udiinka ganacsatada waxgaradka waan leeyahay waa bal ha laga tashado aayihii degmada boorama baaba'day war dawladda hoose waa muraayadda degmadu iska daawato dhas baa saarmay haddaad hor istaagto iskama arkaysid marka waxaan ku boorinayaa inta waxgaradka ah in ay bal isu yimaadaan oo nimankan aynu ka tashanno maantana waxay wadaanba waxay yidhahdeen 4 milyan mishaar bay kororsadeen xildhibaannimo xaal qaado xildhibaannimo xaal qaada maan leenahay war muxuu mishaar ku kororsan ninku hadduu noo shaqeeyo ha mishaarka ha kororsado annaga u ogol inuu kororsado oo wax dee anfaca oo isaga iyo qoyskiisa ku filan inuu qaato annagaa jecel laakiin waxa noo qabto been kuu sheegi maayo dariiqan ku hoydo war uu xidhmay dariiqii qashin baa xidhay ay magaaladii boorama meel aad ka marto lafahaaga aad uga baqaysaa ay ku cunayaan dee nimanka shaqadoodii ma garanayaan nin waliba gaadhi buu soo kireysanayaa ama shaybo ama jubba ka soo kireysanayaa waa maayir fayl buu sitaa dheer yaa isuma haysto inuu golo deegaan yahay oo loo doortay qashinka magaalada inuu guro uu magaalada nadaafadeeda iyo oo ka shaqeeyo waxbarashadii baa baaba'a caafimaadkii baa zeroya war wax allaala waxay qabanayaan haba yaraatay ee ma jirtay cadceed soo baxda waxa la isku haystaa mooshin kan rida nin wax qabta lama ogola maayir wax qabta hadduu meesha yimaad lama ogola ku wax cuna hadduu yimaad lama ogola de garan mayne bal waxaan ka war sugaynaa indhargaradka degmada culimaa udiinka ganacsatada intii wax kala garanaysa garaadle ee damiirle ee ka damqanaysa sidan ayaan ka sugaynaa horta inuu go'aan ka soo baxo bal wixii kuwaa nagaga soo noqda ayaan anagu sugaynaa haddaanu nahay dhallinyartii gobollada galbeedka oo waxaan ku baaqaynaana midda kale inaannu cod ka keenno nimankan ay iska tegaan meesha si ay ula wareegaan ganacsatadu odayadu caaqilada ama salaadiinta culimmada dadka aanan hunguraynaynin kana talinaya nadaafadda iyo horumarka degmada inaynu ku bedelanno annagaa soo dooran nimankan waan ku hungownay laakiin waxaan leeyahay xildhibaannimo xaal qaado wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan ku hadlaynaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama xildhibaanadu waa niman dhallinyaro ah waa niman maxay magaca dhallinyaro aan wadaagno waxaanu la jecelnahay waxqabad horumarka degmadaan la jecelnahay waxaan nahay dadkii cadceedda u istaagay si ay u fuulaan kursiga laakiin nasiib dar wixii aan ka filayeyna kamaanu helin hawsha laynii doortay waa ay degmada nadaafadeeda iyo degmada gacan ku haynteeda marka waxaa nasiib daraa
in 21 nin oo 21 ko maayirihiin maanta magaaladii ay yimaadeen waxa nasiib daraa in xildhibaanada golaha deegaanku ay noqdeen kuwa ugu liita Soomaaliland anigaas waa nasiib daro waanu cambaareynaa sidaan inii doornay cadceedaan inigu istaagnay arrinkaasi kii aanu inii doornay ma aha war shaqadiina garta midda kale hankiinu maanta han degmo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Timberitool han siyaasadeed ayaad yeelan kartaan oo hay nigu jiray inaad qaranka siyaasad ka noqon kartaan oo hankiinu weynaado laakiin haddaad ku dhicisowdaan oo ku guuldareystaan maamulka degmada hanka wal cid inaguma aamini karayso waxa weeyaan cashuurtii gobolka iyo degmada maamulkeedii hawsheedii baad gacanta ku haysaan inaad wax qabataan baan iniga filaynay aad baan uga xunnahay arrinkaas fadhiga looga noqdo madii kalmagacii dhalinyarnimada waad baabiinaysaan waxa laayn dhalinyar baa imanaysa oo odayaashii bedelayso xaalad kasta la socoto kuwii aan doornay ee dhalinyarta ahana mooshin bay dhaafilaayeen hankiiniyo mooshin buu noqday war wax qabad baa iniga sugayaa oo dalka inaad wax u qabataan dadka wax u qabtaan degmo dhanbaad wakiil ka tihiin oo layni doortay waa nasiib daro maanta in dhalinyaradii ay sheekadaas la yimaadaan iyagu dhexdooda isqabsadaan oo mooshin iyo waxaan loo baahnin shalay toole mid ka tuureen isagoona 3 bilood gaarina wax kale mooshin baa layni doortay wax balaan baa layni doortay dalka wax u qabta dadkana wax u qabta hadii kala jagada baneeya